habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye caawana waxa ugu dooroon faahfaahin ka soo baxaya qarax dad shacab ay ku geeriyoodeen oo galabta ka dhacay deegaanka la foole ee gobolka Shabeellaha Hoose hay'adda Amnesty International oo dawladda Kenya ka dalbatay inay gacanta ku soo dhigto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhawaan ka baxsaday xabsi ku yaala Muqdisho qaar ka mid ah ardadii sanadkan ka baxay iskuulada deegaanada Puntland oo soo gaaray Muqdisho si ay u galaan imtixaanka shahaadiga ee dawladda xilli daladaha waxbarashadu ay arrintan baa ka soo saareen xildhibaanada federaalka ee laga soo doorto Puntland oo madaxda sare ee dalka ugu baaqay inay farageliyaan khilaafka waxbarashada ee u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka maamulka Jubbaland oo faahfaahin ka bixiyay dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo kaas oo u dhaxeeyay ciidamada Jubbaland iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Turkiga oo weerar argos ah ku qaaday militariga Syria madkala ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha Febraayo sanadka 2020 warkan oo dhan waxa caawa u diyaara Cabdiweli Abubakar aad baad u mahadsantahay Axmed Saciid Axmed habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan 5 ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qarax nooca miinada dhulka lagu aasaha oo ka dhacay galabta deegaanka la foole ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiweli Cali Online ayna faahfaahiyo gaarigan oo ka soo ambabaxay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kuna sii jeeday magaalada Muqdisho ayaa nawaaxiga deegaanka Xaawi Cabdi oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye waxa ku qabsaday qarax xooggan kaas oo ka dhashay sida la rumaysan yahay miinada nooca dhulka lagu aaso waxaana gabi ahaanba geeriyooday 5 qofood oo la sheegay in ay saarnaayeen gaariga miinada ku qaraxday oo nuuciisu ahaa gawaarida yaryar ee raaxada dadka dhintay oo ku jiro wadihii gaariga ayaa u badnaa dad degan degmada Walaweyn sida idaacadda kulmiye oo u sheegay mid ka mid ah ehelada dadkaas maalinkeeyo eheladiina waa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay oo haysto naarijanada Allah ka waraabiyo eheladiina waaye haddii aan kaaga warbixino maalinkeeyo dadkaas waxay soo baxeen malable oo labeenayda soo baxeen xaafadda Allah ay malable مساجد الظهر دي عمل صلاة دور مساجد صوت الدين صوبحين شن قفوض ايهايين مركا هذه مركي حاوة قد مركي لمرايين هذه مكرح من عدوك الوقع بس سبع الشيئين معنا لبحين مركا هذه عبد الله كوري على الشيء هاي انا اعطاهم مقري حكتا عبد الله كوري باورك معنا باورك انت مركي وقرحيها مركا هذه عبد الله مركي بإلهي وقد بينا جيك باوكي oo kilarka ay qornay marka eheladiina way marka Allah u naxariisto darawalka magaciisa waxa Allah Abdulqaadir sida dadka walaweyn ay dadka kale ay ka taan ila reer Muqdisho wala ka taan darawalka magaciisa Abdulqaadir Garaar Allah wiil kale oo macna dadka kalena macna oo Muqdisho ka soo baxeen ay ahaayeen walaweyn adam macna ka soo gashay dana ay soo baxeen madbad oo hor u laabanay Muqdisho u laabanay ahaayeen laba qofoodna ehelkeena waaye saddex qofoodna midna gabadha ku jirto lagu wiil gabar xamar ay imaadeen walaweynayna soo aadeen Cabdiweli Cali Online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose hay'adda Amnesty International ayaa dawladda Kenya ka dalbatay inay gacanta ku soo dhigto wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku eedeysan dambiyad dagaal kaas oo ka baxsaday xabsi ku yaala Muqdisho wariyaheenna Maslax Abubakar Xaaji ayaa warkayno haya war qoraal ah oo goordhow ka soo baxay xafiiska hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay ku leedahay magaalada Nairobi ayaa looga dalbaday dawladda Kenya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo qabato xabsigana ay u dhigto Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland oo dhawaan ka baxsaday guri ay xabsi ahaan ugu haysay dawladda federaalka Soomaaliya Amnesty International ayaa weydiisatay dawladda Kenya in Cabdirashiid Janan uu galay dambiyo caalami ah dad badan oo uu ku xadgudbayna iminka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo cadaalad u baahan waxa Amnesty International ay sheegtay in sidoo kale dawladda Kenya si gaar ah ay uga codsanayso in marka ninkan xabsiga la dhigo loo gudbiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maxkamadeyn doonta wax aan xilligan la aqbali karin in Cabdirashiid Janan
oo ah tuhumne loo haysto mas-uuliyadda dembiyo caalami ah oo uu ka galay qeybo ka tirsan deegaanada Jubbaland in iminka uu ku sugnaado magaalada Nairobi. Tani waxa ay ka hor imaanaysaa xuquuqda aadanaha. Waxaan weydiisanaynaa dowladda Kenya in si rasmi ah ay ninkan ugu wareejiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ciidamadeeda ammaankana ay amarto in gacanta lagu soo dhigo. Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa dhawaan waxa uu ka baxsaday magaalada Muqdisho guri ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku ilaalinaysay muddo dhowr bilood ah, iyadoona booliiska Soomaaliya ay sheegeen in aysan garanin cidda fududeysay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsado gurigaasi, balse waxaa maalmo kadib uu gaaray magaalada Kismaayo isagoona si degdeg ah ugu gudbay magaalada Nairobi oo la sheegay in xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo kadib markii ay soo wajaheen intii ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gacanta ku haysay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda Kenya oo ku saabsan dalabka uga yimid hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. qaar ka mid a ardayda sanadkani ka baxday iskuulada deegaanada Puntland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u galaan imtixaanka shahaadiga ee dowladda, iyadoona dhanka kale ee daladaha waxbarashada baaq ka soo saareen. Cumar Maxamed Soomane inoo faahfaahiyo. ardaydan oo qayb ka ah kuwii dhowaan ka baxay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee Puntland ayaa maanta ka soo dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kuwaasi oo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ardaydan ayaa magaalada Muqdisho waxa ay kaga qayb geli doonaan imtixaanka shahaadiga ah oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. ardayda ka dhooftay magaalada Boosaaso ayaa ujeedkooda lagu sheegay in ay tahay sidii ay ku heli lahaayeen shahaadada waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay doonayaan in waxbarasho dalka dibaddiisa ay ku doontaan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray khilaaf xooggan oo ku aadan ardayda deegaanada Puntland oo doonayay inay helaan shahaadada waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo dhalisay in khilaaf xooggan uu ka dhex abuurmo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland. gudoomiyaha daladaha waxbarashada Soomaaliya Maxamed Axmed Macalin ayaa shir jaraa'id ee u qabtay waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland looga fadhiyo in ay xaliyaan khilaafka ka dhex aloosan ee dhanka waxbarashada ku saabsan, iyada oo la eegayo mustaqbalka ardayda wax ka baranaysa deegaanada Puntland. marna kuma aanaan ballamin waxbarashada Soomaaliyeed iyo ilmaha Soomaaliyeed waxbarashadooda in la siyaasadeeyo. waxaan ku ballannay siday xor u ahaan jirtay maamulada ka hor waxbarashadu inay xor tahay, oo haddii ilaahay kuu roon yahay in la hormariyo moogiye aan dib loo dhigin, aanan lagu gorgortamin lana siyaasadayn waxbarashada ilmaha Soomaaliyeed. marka daladuhu waxay soo dhoweynayaan raacsan yihiinna in imtixaanka la wada galo. haddii la wada geli waayana loo helo nidaam oo muxuu ahaa decentralized ah oo qolo waliba imtixaankeeda intay qaadato markaa shahaadada wasaaradda la iskugu yimaado. maamulka reer Puntlandna waxaan leenahay waxbarashadu ma gasho gorgortan, waxbarashadu ma gasho siyaasad. maamul goboleedyadoo dhanna waan u sheegaynaa inaan lagu gorgortamin oo la siyaasadayn waxbarashada ubadka Soomaaliyeed inaan la siyaasadayn. wasaaradduna inay dedejiso in loo helo ardaydaas, in loo helo muxuu ahaa shahaado, in la helo imtixaan wada jirana la galo. arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka dhanka madmadowga siyaasadeed ee ku aadan arrimaha waxbarashada Soomaaliya, taasi oo ka dhex aloosan Puntland iyo dowladda federaalka ah ee dalka. Cumar Maxamed Soomane, KNN, Garowe. xildhibaanada federaalka ah ee deegaan doorashadoodu tahay maamul goboleedka Puntland ayaa madaxda sare ee dalka ugu baaqay inay farageliyaan khilaafka waxbarashada ee Puntland iyo dowladda dhexe. war-soo-saaraheena caawa Yunis Duraan Cali ayaa inoo haya faafahinta warkan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku matala dowlad goboleedka Puntland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka sii xoogaystay ee ka dhexeeya wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland. xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay kulankooda kadib ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in xilligan uu meel adag maraya khilaafka salka ku haya qaadista imtixaanka sanadeedka iyo bixinta shahaadada ardayda Puntland. xildhibaanadan ayaa madaxda sare ee dalka ugu baaqay
in ay wax ka qabtaan khilaafkan. waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyey ee hutiira aanu ku gallay wasaaradda puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dowladda dhexe ee federaalka iyo xildhibaano iyo wasiiro dowladda dhexe ka tirsan ee ka soo jeeda deegaan doorashadaas ee puntland waxaanu halkaas ku gabagabaynay sanadkii hore ardada shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaana loo siiyaa shahaadada ardadii sanadkii hore ka baxday waxaanu ku ballansanayn wasiirka iyo wasaaraddiisa ragga ee wasiirada la shaqeeyaba oo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyagoo goobjoog ah inaannu annagoo xildhibaanaa oo wasiirra nagu jiraan aanu puntland tagno inta yar ee khilaafkaana aanu dhammayno intaan la gaarin teeramka dambe imtixaanka dambe ardada dambe ee sanadka dambe u baahan shahaadada arrintaas waxay noo ahayd arrin noo taagan waxaanu rabnay hadda inaannu ku baxno puntland oo aanu tagno waxaanu rabnay inaannu soo dhammayno intii yareed ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayaana noo maraysay wasiir goodax ayaa degdegey anugu horey baanu idhi waa meelaan rabay ruumaygu eriyey waxaan rabaa ardada puntland inaan ugu baaqo annaguna xildhibaana ka ahaan mayno dowladda dhexe idinkuna shahaada waa imaysaan taa horta qalbiga gashada niyadda gashada ku dega madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadda dalku labadooda ayay si gaara u saaran tahay lama siyaasadayn karo looma isticmaali karo awoodda qaranka laguma maaragtay dhibaatayn karo shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan arrintaani marka go'aankeeda iyo taladeeda iyo waxkaqabadkeeda waxaa laga sugayaa oo ay u taallaa madaxda qaranka iyagaa laga rabaa inay arrintan tallaabo cad ka qaadaan go'aan ka gaaraan. hadalka xildhibaanadan ayaa ku soo aadaya xilli puntland ay diiday in ardayda deegaanadaas aysan ka qaybgelin imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka ay qaado iyadoo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalkana ay sheegtay in arday aan ka qaybgelin imtixaankeeda aysan siihayn wax shahaada. maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal maanta ka dhacay galbeedka magaalada kismaayo kaasoo u dhexeeyey ciidamada jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab. waryaheena cabdilmajiid cabaas aadan oo kismaayo joogay warkaan noo soo diray. laamaha amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgal ay sheegeen in laga fuliyey galbeedka magaalada kismaayo islamarkaana ka dhan ahaa dagaalamayaasha al-shabaab. afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanka beerxaani gaar ahaan aagga labikuus lagu dilay xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab. waxa uu sheegay afhayeenka in howlgalkaas sidoo kale lagu soo qabtay qori AK-47 iyo saanad ciidan sida uu sheegay afhayeenka qorigaasina uu watay xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab la dilay sida uu hadalka u dhigay. ciidamada dowlad goboleedka jubbaland qaybta galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxay sameeyeen howlgallo ka dhan ah kooxaha sharwadayaasha howlgallada waxaa howlgallo qorshaysan loogana dan lahaa taargetka uu ahaa meelo cayiman oo kooxaha sharwadayaasha ay ka maleegayeen dhibaateynta shacabka inta jubbaland ee nabadda jecel. alxamdulilah ciidamada waxaa u suura gashay in ay goobtii ay ahayd si fudud kula wareegaan ayna halkaa u dilaan horjoogayaalkii erida haysta horjoogii ugu sarreeyey oo magaciisa la yidhaahdo mukhtaar ayna kaga soo furtaan hub. alxamdulilah ciidamadana si nabad ah oo guul ah ayay howshoodii kusoo dhammaysteen. erida howlgalka uu ka dhacayna waa eri beerxane tulada la yidhaahdo labikuus. alxamdulilah ciidamadayana mar walba waxaan u rajaynaa guul. howlgalkan wuxuu ahaa howlgal qorshaysan howlgal wuxuu ahaa mara cayiman oo kooxaha ay ka maleegayeen dhagarta shacabka soomaaliyeed ee lagu soo afjaray ayay ahayd. ma ahayn deegaan la kala qabsanaya midna mays ahayn dhagar bay meel ku maleegayeen dhagarta ayaa lasoo afjarayey. waxaana halkaa ku baktiyey ninkii ugu sarreeyey kooxihii argagixisada erida ku sugnaa magaciisa lagu sheegay mukhtaar ayaa halkaa ku baktiyey. ciidamadana waxay ka gaareen guul waxayna ka soo furteen hub. marka laga tago warkan ka soo yeeray laamaha amniga ee jubbaland ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya in howlgalkaasi lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyadoona al-shabaab weli dhankooda aysan ka hadlin howlgalkaasi. cabdilmajiid cabaas aadan fantastic KNN kismaayo. weli waxaad degeysanaysaan warka habeen radio kulmiye iminkana qodobka dibadda. militariga waddanka turkiga ayaa duqeyn ku dilay 6 ka mid ah askarta dowladda suuriya iyadoona dad kale oo shacab ah dhaawac ka soo gaaray duqeyn ay geysteen xooga turkiga ee jooga gobolka ku yaala waqooyiga waddanka suuriya ee idlib. weerarka xukuumadda ankara ayaa wuxuu imaanayaa kadib weerar saaka aroortii hore ay ciidamada siiriya ku qaadeen askar ku sugneed gobolka idlib. madaxweyne urdugan ayaa ka hadlay duqeyntan ay geysteen ciidamada ayaa waxa uu digay dowladaha xulafada ka ah maamulka madaxweyne asad inay cambaareeyaan falcelinta ay sameynayaan ciidamada turkiga sababtuna waxa uu ku sheegay inay isdifaacayaan
xaaladda labadani dal ee dariska ah ayaa waxaa laga yaabaa inay weji kale u yeesho dagaalka muddada dheer qaatay ee ka socda